بسم الله الرحمن الرحيم كل هذا مركله هي برنامجكي wararka maanta qodobadahan idinkugu haynana waxa kamid ah Mareykanka ayaa qorsheynaya in haddii dib u qarxo dagaalka Iran in la laayo madaxda ciidamada iyo mas'uuliyiinta kale ee dalkaasi oo la sheegay inay caqabad ku yihiin heshiis ay gaaraan Tehran iyo Washington taliyaha ciidamada Qudus ee ciidanka ilaalada kacaanka Iran oo si adag uga falceliyay hadallada Trump isagoo digniin ku bixiyay in Mareykanka iyo Israa'iil ay ku gaban doonaan dabka ay horinayaan maamulka Trump ayaa ka fiirsanaya in Spain laga saaro gaashaanbuurta NATO iyo tilaabooyin kale oo ka dhana dalalka xubnaha ka ah isbahaysigaasi reer galbeedka ku dhawaad 20 qof oo dhimasho iyo dhaawac ka soo gaaray duqayn Ruushku oo ku qaaday magaalada Odessa ee dalka Ukraine Mareykanka oo $10 milyan dul dhigay madaxa hogaamiyaha kooxda Sayid al-Shuhada oo kamid ah kooxaha Iran ay taageertay ee dalka Iraq militariga Israa'iil oo qirtay qasaare hor leh oo ciidankooda ka soo gaaray weerar Xisbullah ay ka geysatay koonfurta Lebanon sidoo kale barnaamijka waxaan idinku haynaa xubintii falaaqaynta oo aynu ku eegayno warbixin ku saabsan Mareykanka oo ku fashilmi doona go'doominta Iran dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordhay intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka maanta waxaynu ku bilaabaynaa colaadda Ukraine iyadoo dagaalka uu socdo in ka badan 4 sano ayaa waxa dhinaca kale la soo warinayaa inay socdaan duqeymo culus oo isweydaarsanayaan labada dhinac wararkii ugu dambeeyay ee amuurahani ugu yaraan 2 qof ayaa ku geeriyotay halka 14 kalena ay ku dhaawacmeen duqeymo Ruushku ka geystay magaalada Odessa ee koonfurta Ukraine sida maanta ay sheegeen adeegyada gurmadka degdega ah weeraradan ayaa beegsaday 4 dhisme oo ku yaal magaalada ku taal xeebta badda madow taasi oo marar badan noqotay bartilmaameed duqeymahan ayaa ahaa kuwii ugu dambeeyay weerar xiriir ah oo labada dhinac ay ku beegsanayaan goobaha rayidka iyo kaabayaasha bulshada waxaan ay ku soo beegmaysaa arrintan iyadoo shalay 4 qof lagu dilay magaalooyinka Dnipro oo ku taal bartamaha Ukraine iyo Saymotir oo dhacda waqooyiga galbeed warbixin hore oo ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in tan iyo bilowgii dagaalka Ruushka iyo Ukraine ee sanadkii 2022 ku dhawaad 15,000 oo qof oo rayid ah la dilay halka in ka badan 40,000 oo kalena ay dhaawacmeen sanadkii hore ee 2025 ayaa noqday midkii ugu dhimashada badnaa tan iyo 2022 iyadoo ay ku dhinteen dalkaasi 2,500 oo qof oo rayid ah xagga Ciraaq haatan aynu eegno oo Mareykanka warweyn oo soo saaray waaxda amuuraha dibadda ee wadanka Mareykanka ayaa ku dhawaaqday abaalmarin gaaraysa $10 milyan si loo helo xog ku saabsan Hashim Finan Rahimi al-Siraji oo loo yaqaan Abu Alah al-Wala oo ah xogayaha guud ee maleeshiyada Sayid al-Shuhada oo kamid ah kooxaha Iran ay taageerto oo Mareykanku u arko waxa loogu yaro argagixisada bayaan lagu daabacay baraha bulshada ayaa lagu sheegay in al-Siraji lagu eedeeyay dilka rayid Iraaqiyiin iyo weerar ka dhana xarumaha diblomaasiyadda iyo saldhigyada Mareykanka ee Ciraaq iyo Suuriya iyadoo qofkii bixiya xog horseedi karta qabashadiisa loo ballan qaaday lacag iyo suurtagalnimada deganaansho uu ku noolaado Mareykanka al-Siraji ayaa sidoo kale waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha isbahaysiga Shiicada oo ka kooban kooxa Iran u dhow isla markaasna ah garabka ugu weyn ee baarlamaanka Ciraaq kooxa Iran ay taageerto ayaa si joogto ah u beegsada danaha Mareykanka ee Ciraaq iyadoo xiisadii dhawaan gobolka ka dhacdana ay kordhisay weerarada kooxahaasi ay ku hayaan danaha Mareykanka ee wadanka Ciraaq waa tahay
markan waxaynu eegaynaa war weyn oo sidoo kale ku saabsan Mareykanka waxaana la sheegaya arrintan in la xiriirto tilaabooyin Washington ay doonayso inay ka qaado wadamada NATO waxaa isa soo taraya wararka sheegaya in Mareykanku uu ka fiirsanayo tilaabooyin ka dhan ah qaar ka mid ah xubnaha gaashaanbuurta NATO oo lagu eedeeyay inaysan taageerin hawlgallada Mareykanka ee ka dhanka Iran wakaaladda wararka ee Reuters ayaa baahisay inay heshay macluumaad ku saabsan dukumiintiyo lagu wadaagay gudaha waaxda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka kuwaasi oo lagu falaqaynayo xulashooyin ciqaabeed oo suurtagal ah in la beegsado dalka xubnaha ka ah NATO ila wareegyadu waxay sheegeen in tilaabooyinka Washington ay ka fakarayso ay ka mid yihiin in dib loo eego amaba la hakiyo xubinnimada dalka Spain ee isbahaysigaasi inkastoo arrintaasi ay noqon karto mid qaanuun ahaan adag oo aan horay u dhicin sidoo kale dukumentiga wuxuu soo jeedinayaa in dib loo qiimeeyo mowqifka Washington ee ku aadan sheegashada Ingiriiska ee jasiiradaha Falkland arrin xasaasi ah oo horay muran uga dhex dhalisay Ingiriiska iyo Argentina tilaabooyinkan ayaa muujinaya khilaaf sii kordhaya oo ka dhex jira NATO gaar ahaan marka ay timaado siyaasadaha bariga dhexe qaar ka mid ah dalalka Yurub ayaa horay uga gaabsaday taageerida tilaabooyin militari oo ka dhan ah Iran iyagoo door bidaya xalal dhanka diblomaasiyadda falanqeeyaal ayaa sheegaya in haddii Washington ay qaado tilaabooyin caynkaasi ah ay halis gelin karto midnimada NATO oo ah isbahaysi muddo dheer jiray ilaa hadda ma jirto xog rasmi ah oo la shaaciyay balse doodahan ayaa ka soconaya gudaha Mareykanka وهجاك وركاس وحكو سو كردها وaynu arki doonaa bal markan aynu eegno wararka kooban oo la xiriira xaaladaha ee bariga dhexe ugu yaraan 3 askari oo Israa'iiliin ah ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhaawacmeen kadib markii shil uu ka dhacay koonfurta Lebanon lama soo sheegin waxa uu yahay laakiin waxay arrintan ku soo aadaysaa iyadoo ururka Hezbollah weerar uu ku hayo militariga Israa'iil ee ku sugan koonfurta Lebanon dhinaca kale wasaaradda caafimaadka ee waddanka Lebanon ayaa waxay xaqiijisay in 2 qof la dilay kadib markii Israa'iil ay duqeyn ka geysatay magaalada la yiraahdo Tulan ee dhacda koonfurta waddankaasi ee Lebanon dhinaca kale xafiiska waa taliska gudaha ee Israa'iil ee difaaca ayaa waxa uu soo warinayaa in seeriga digniinta ka bixaya gantaalada laga maqlay deegaanka Zaraa'it ee ku yaala waqooyiga Israa'iil waxay tani ka dambeysay kadib markii diyaarad doonar ah oo ka timid dhanka Lebanon ay xuduudda soo gashay وهجاك ورك كلا حتى صار عيا وحى كم ده وكالة ورك ريترس عيا وحى كسر حاجتي مسؤولين كتستن دولة دولة كاسية باكستان إن وزير كارمها دبد إيران عباس عراقجي ما أنتي وجاري مجال إسلام بعد عاصمة دولة باكستان وحنا سفر كان وكسر أذية يدو عيا عكريهين قرشه وده حاجود ده لجودون هي إن لا يسكوهر كأنه مريكان كا إيران lama oga ilaa hadda ujeedada uu u tagay Abbas Araqji magaalada Islamabad mana jirto war rasmi ah ka soo baxay dhanka dawladda Iran wixii ku soo kordhay arrimahana intayna barnaamijka ku jirno oo hadii ay wax soo kordhaan ama barnaamijyadeena dambe ayaan idinku soo gudbinaynaa hadii Allah idmo waxaan u gudbaynaa Mareykanka oo la sheegaya hadii dagaalka Iran dib u qarxo in markan uu beegsan doono taliyaasha ciidamada iyo wax lagu tilmaamay مسؤوليinta caqabada ku ah qorshaha heshiis ay gaaraan Mareykanka iyo Iran war culus oo ka soo yeeray taliye sare oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacanka Islaamiga iyo xubintii falaqaynta oo sheeka xasaasi aan idinku hayno intaan u gudbin wararkaas aynu ku hakano qadar haysiin wada marka la daawadayaal ku xirna waajibiyaan oo ka dhigo wehelkaaga wararka wahagaag intaan u gudbin wararka kale aynu eegno dhowr degdeg ah oo hadda soo dhacay telefishinka CNN ee laga leeyahay Mareykanka ayaa waxa uu tabinayaa in wafdi ka socda Iran ay gaareen waddanka Pakistan halkaasina waxa la sheegayaa in uu tageen wada hadallo la xiriira xaaladda bariga dhexe Iran ilaa hadda arrintan war kama soo bixin laakiin wixii soo kordhay waynu arki doonaa dhinaca kale dhanka Lebanon iyo Israa'iil hadii aynu eegno war degdeg ah hadda soo dhacay ururka Hezbollah ayaa waxa uu sheegayaa inay soo rideen diyaarad drone ah oo Israa'iil ay leedahay Israa'iil soo kale waxay sheegaysaa in ay soo riday iyaguna
diyaarad soo gashay koonfurta Lubnaan xadka Israa'iil ay lugto dhinaca kale ciidamada Israa'iil ayaa la sheegayaa inay ku amreen dadka degan deegaano badan oo ku yaala koonfurta Lubnaan inay iskaga baxaan halkaasi si degdeg ah arrimahan waxay ku soo kordha waynu arki doonaa waa hagaag haddaba xiisada Mareykanka iyo Israa'iil u dhaxaysa waa Mareykanka iyo Iran u dhaxaysa haddii aynu ku sii soconno waxaa lagu soo waramayaa in maamulka madaxweyne Donald Trump ay qorsheynayaan duulaan haddii ay fashilmaan wada xaajoodida u dhaxeeya Iran iyo Mareykanka inkastoo la sheegayo in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu hadda door bidayo inuusan dib ugu laaban dagaal lala galo Iran haddana suurtagalnimadaasi weli miiska ayay saaran tahay mid ka mid ah xulashooyinka Trump uu haysto ayaa ah baa leeyahay in la beegsado taliyaasha militariga Iran iyo saraakiil kale oo lagu tilmaamay inay caqabad ku yihiin nidaamka Iran kadib markii saraakiil Mareykan ah ay ku eedeeyeen inay si firfircoon uga shaqeynayaan carqaladaynta wada hadallada sida ilo xogaal ah ay u sheegeen telefishinka CNN ee laga leeyahay Mareykanka ilo wareedka ayaa sidoo kale waxay tilmaameen in liiska bartilmaameedka uu ku jiro Ahmed Wahidi oo ah taliyaha guud ee ciidanka ilaalada kacanka Islaamiga ee loo yaqaano IRGC mar waxa laga weydiiyay qorshahan sarkaal ka tirsan waaxda dagaalka ee Mareykanka ee Pentagon wuxuu ku jawaabay sababo amni awgood kama hadli karno tilaabooyin mustaqbalka dhici doona ama wax mara awaada sarkaalka ayaa intaasi ku daray in militariga Mareykanka uu sii wadi doono inuu madaxweynaha siiyo xulashooyin isagoo sheegaya in dhammaan xulashooyinka miiska weli ay saaran yihiin Trump ayaa marar badan wuxuu horey ugu andacooday in nidaamka Iran uu kala daadsan yahay isla markaasna uusan jirin hal sarkaal sare oo la xiriiri karo waa sida dalka uu dhigay qoraal xalay uu ku daabacay bartiisa bulshada ayaa waxa uu ku sheegay in ay jirto kala qaybsanaan u dhaxaysa ciidanka ilaalada kacaanka iyo xubnaha dawladda ee wada hadalka la galay Mareykanka isagoo sheegaya in arintaasi ay caqabad ku tahay heshiis dhanka diblomaasiyadda ah dhanka Israa'iil ayaa mar kale waxay ku hanjabtay in ay dib u bilaabi doonto dagaal wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Israel Katz ayaa ku hanjabay inuu ciribteeda doono wasiirada ku yiri qoyska Khamenei isagoo ula jeeda wiilka hogaamiyihii hore Mujtaba Khamenei oo kadib dilka aabihiisa loo doortay hogaamiyaha sare ee cusub ee Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran wuxuu sheegay in weerarka xiga Israa'iil uu noqon doono wasiirada ku dhigaya mid ka daran kuwii hore wuxuu sidoo kale cadeeyay in dilidda Mujtaba Khamenei ay noqon doonto tilaabada ugu horeysa haddii dagaalku dib u bilowdo kadib xabatoojin ku meel gaar ah Katz ayaa waxa uu xusay in Israa'iil ay si cad u dejisay yoolalkeeda isla markaasna ay sugayso iskaashi buuxa oo ay la yeelato Mareykanka si loo bilaabo wajiga cusub ee hawlgalka loo bixiyay guuxa liibaha wasiirka gaashaandhigga Israa'iil ayaa waxa uu ku andacooday in hogaamiyaha Iran uu ka mid yahay Mujtaba Khamenei ay hadda waa hogaamiyaasha Iran oo ka mid yahay Mujtaba Khamenei ay hadda ku sugan yihiin godad dhulka hoostiisa ah isla markaasna ay la daala dhacayaan dhibaatooyin culus oo dhanka isgaarsiinta ah iyo waliba go'aan qaadashada xagga Iran haddii aynu jaleecno General Ismaaciil Khani taliyaha ciidanka Qudus ee qaybta ka ah ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran ee loo yaqaano IRGC ayaa maanta farta ku fiiqay in midnimada aan kala go'an lahayn ee shacabka Iran ay muujiyeen iyo isku duubnida buuxda ee madaxda dawladdu ay xudun u yihiin taageerada go'aamisa iska caabinta iyo dagaalamayaasheeda aan xuduud lahayn ee dagaalka kula jira sida uu yiri cadawga Mareykanka iyo Sahiyuuniyadda fariintan General Khani oo ku daabacay baraha bulshada ayaa waxay la socotaa fariimo kale oo ka soo yeeray hoggaanka sare ee Iran saacadihii la soo dhaafay kuwaasi oo lagu muujiyay midnimada ka dhex jirta Iiraaniyiinta hoggaanka haysa taliyaha ciidamada Qudus ayaa ku nuuxnuuxsaday midnimo adag oo u dhaxaysa shacabka iyo dawladda wuxuuna si cad u yiri dhamaanteen waxaynu nahay Iiraaniyiin iyo kacaan yahan iyadoo la raacayo wadiiqada hogaamiyaha sare uu jeexay waxaan ku dhigi doonaa kuwa gardarrada wada wax ay ka qoomameeyaan bayaankan ayaa waxa uu la jaan qaadayaa bayaano xalay ay soo jeediyeen
madaxweynaha Iiraan Mas'uud Pezeshkian gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Baaqir Qalibaaf iyo madaxa garsoorka Qulaam Xuseen Mohsen Ejai kuwaasi oo si wada jir ah uga jawaabay hadallo ka yimid madaxweyne Donald Trump oo ku aadan in Iiraaniyiintu ay kala daadsan yihiin oo khilaaf oo ka dhex aloosan yahay wahaga haatan waxaynu soo gaarnay xubintii falaqaynta oo aynu aalaaba ku soo qaadano macluumaadka iyo xogaha ay bixiyaan khubarada arrimaha militariga arrimaha istiraatiijiyadda dagaalka iyo ciidamada sidoo kale xubintan waxaynu ku gorfaynaa waxyaabaha waaweyn ee warbaahinta caalamku ay daabacdo ay baahiso si gaar ah xubintan waxaynu ugu eegaynaa qabiir Amerikaan ah ayaa waxay sheegaysaa in go'doominta Mareykanka oo ku hayo Iiraan ay ku dabayn doonto fashil haddaba xogtaas oo saacadihii ugu dambeeyay si weyn loo hadalhayo ayaa waxa ay muujinaysaa macluumaadka la xiriira xaaladan soo noqnoqotay ee la xiriirta dagaalka haweeneyda lagu magacaabo Jennifer Kavanagh oo ah qabiir Amerikaan ah ayaa waxay sheegtay inay aaminsan tahay in istiraatiijiyadda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ku aadan ku soo rogista xanibaad Iiraan aysan gaari doonin ujeedooyinkeedii la rabay sababtoo ah bay tiri cunaqabatayntu waxay keeni kartaa cadaadis dhaqaale balse waa hab si tartiib ah u shaqaynaya waxay tiri badanaa ma keento natiijooyin dhanka siyaasadda ah oo degdeg ah sidaasi oo filayo maamulka Trump maqaal ay ku qortay jariirada New York Times Jennifer oo ah agaasimaha falaqaynta militariga ee barnaamijka Defense Priorities ayaa waxay sharaxday in go'aanka Trump ee ku saabsan Iiraan uu ka turjumayo qaab soo noqnoqda oo ku jira siyaasaddiisa military iyadoo xanibaadan noqotay mid ay sheegayso inay tahay habka uu jecel yahay taasi oo horey ugu soo isticmaalay Venezuela iyo Cuba marka laga hadlayo bay tiri Iiraan maamulku wuxuu doonayaa inuu ceejiyo dhaqaalaha Iiraan waa maamulka Trump isla markaasna uu ku qasbo Tehran inay dib u furto marinbiyoodka Hormuz oo ay aqbasho shuruudaha Washington laakiin istiraatiijiyadaasi waxay leedahay waa mid cilado asaasiya leh oo waxay u dhaxaysaa filashada iyo xaqiiqooyinka oo farqi ayaa u dhaxeeya Kavanagh waxay tilmaamaysaa in kala qaybsanaanta iyo kala duwanaanta dabeecadaha qataraha ee labada dhinac ay tahay arrin muhiim ah waxay tiri Iiraan dagaalku waa mid jiritaan taasi oo ka dhigaysa inay diyaar u tahay inay u dulqaadato dhibaato muddo dheer Trumpna dhanka kale waxay tiri wuxuu doonayaa guul degdeg ah oo go'aan ah taasi oo markaasi xanibaadu aysan suurto gelin karin cunaqabatayntu waxay keentaa qarash ku yimaada nidaamyada kala duwan ee dawladda ama qarashka oo ku kordha iyo dhibaato dhaqaale laakiin waxay leedahay ma keeni doonto guul degdeg ah oo uu raadinayo maamulka Trump tusaalooyin taariikheed qoraagu waxay aragtideeda ku taageeraysaa tusaalooyin dhanka taariikhda ah intii lagu jiray dagaalkii sokeeye ee Mareykanka 1861 ilaa 1865 xanibaadii madaxweyne Abraham Lincoln waxay si weyn u daciifisay dhaqaalaha koonfurta laakiin waxay tiri ma soo afjirin dagaalka oo si degdeg ah uma soo afjirin oo wuxuu socday 4 sano sidaasi oo kale ayaa dhacday bay tiri dagaalkii koowaad ee adduunka 1914 ilaa 1918 markii xanibaadii Ingiriiska ee Jarmalka ay keentay dhibaato weyn balse aysan ku qasbin inay si degdeg ah isku dhiibaan sidoo kale waxay tilmaamtay khubaradu in ay arrintani si weyn u muujinayso cunaqabataynta Mareykanka oo ku haya Cuba taasi waxay tiri waxay dhalisay dhibaato dhanka bini'aadantinimada ah laakiin ma keenin inay tanaasusho xukuumadda Havana sidoo kale waxay tilmaamtay in xanibaadii Venezuela aysan ku guulaysan isbedel degdeg ah laakiin ay sii kicisay xaalad military adkaysiga Iiraan ayay ka hadashay qabiirku waxay tiri waxaan aaminsanahay in Iiraan ay u adkaysan karto muddo dheer xaaladan sababtoo ah bay tiri inkastoo dakhliga shidaalka uu hoos u dhacay haddana weli waxay ka faa'iideysan kartaa Iiraan dakhliga ka yimaada shixnadihii hore iyo maraakiibta ku guulaysata inay ka baxsadaan xanibaadda Mareykanka iyo sidoo kale kororka qiimaha shidaalka ee caalamka Iiraan sidoo kale waxay leedahay bay tiri awood kaydin iyo wadooyin ganacsi oo kale oo ay ku caawiso inay u adkaysato cadaadiska Mareykanka qoraagu sidoo kale waxay dhaliilaysaa dhinacyada dhanka qaanuunka iyo kuwa ficilka ee xanibaadda iyadoo xustay inaysan buuxin shuruudaha waxtarka ah ee dhanka sharciga caalamiga ah
sababta waxay leedahay ma cadda xuduudaheeda juqraafiyeed iyo awoodda daciifin karta ee lagu adeegsan karo awood caynkaasi ah. waxay kaloo ka hadashay qarashka xanibaadda ee iminka Maraykanka wajahaya iyo weliba sidoo kale adduunka saamaynta arrintan ka soo gaaraysa, taasi oo ay sheegtay inay sare u qaadayso qiimaha shidaalka iyo sidoo kale waxyaabaha loo adeegsado bacriminta beeraha. waxay kaloo tilmaamtay in arrintan ay tahay saamayn dhaqaale oo caalamka oo dhan saamaynaysa, si gaar ahna Maraykanka waxay sheegtay in durbaba laga dareemayo saamaynta xanibaadaasi. Jennifer Canava waxay ku soo gabagabaysay in xanibaadda Maraykanku ay noqon karto mid dib u muuqata in Maraykanku uu adeegsanayo cadaadis, laakiin waxay leedahay arrintan ma ahan mid guulaysan karta ama gaari karta yoolkeeda. waxaana ay leedahay Iiraan waxay ka faa'iideysan kartaa dulqaadka iyo adkaysiga ay u lahayd cunaqabatayn saarnayd muddo dheer iyo dagaallo ay ku jirtay muddo dheer. waxaana ay ku soo gabagabaysay qormadeeda in Maraykanka uu ku fashilmi doono go'doominta Iiraan uu ku hayo. warbixintaas ayaa ugu dambeysay barnaamijkii. waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino, haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn, hadda ku soo biir. waa inoo barnaamijka xiga insha Allah. inta ka horeysa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.